عداوة كوكرين هدي أنا نلقيقو بيكو بفولدين هدي أنا نلقيقو قبني ما هذا سولدين سومالي كما دلن مالكا غماندغن عني سماندمي مالكا غماندغن عني سماندمي عيدنا دقم الليلين iskuulkuna waa burbursan yahay oo labada galaas waxay qabaan daaqaduhu way burbursan yihiin sabuuradii way naga xumaadeen oo waxay u baahan yihiin dayactir badan iyo wax la mid ah hadii ay xukumayo baahiyaha iyaga oo aad u fara badan macallimiinta oo aanay ku filan waxa ay qaataan 80 bay qaataan kuma filan deegaanka oo aan rabno inaan ku degaameyno macallinka halkan isaga aan rabno in laga caawiyo awooddeeda markaan eegno meesha tan oo ah meel beeraley oo 6 biloodna la beero oo biyo ku yar yihiin 6 biloodna de meel la iska joogo oo la xoolaleeyna aan ahayn budgetka soo galaana uu aad u yar yahay business aan lahayn iyo ganacsi lahayn hay'aduhuna run ahaantii aanay la soo gaarin oo galbeedka iyo meeshaas ay ku xadfan yihiin oo aan ka maqlaan shirkadooda sidaa darteed baahiyaha aan qabno waxa ka mid ah in halkan loogu dagaameeyo maamulaha iyo macallin kale oo isaguna naga caawiya xagga diinta iyo carabiga walaantii qaryad weyn baan nahay laguma tukado jimce waxa keentay awood aan ku soo kaxaysan kar weyneenkii khudbada akhriye lahaa dadkan wax bari lahay annagu waxaan awoodi karnaa in aan guri u dhisno maamulaha soo dejino halkan laba macallin hadii laba saddex been qodaan baan guri u sumay kii xaasan guri u sumay kala guri u sumay laakiin waxaan u baahanahay in laga caawiyo bal xagga si la riga qaadanayaan hantidayna laga caawiyo iskuulkii waa kan dib u dhisan yahay uu samaysan yahay xagga macallimiinta maamulaha un baa jooga iyo macallin kale dhaqaaloodu waa inta yar la sheegay dawladdu ay siiso intaas marka la eego qofka dee wax ku filan kara ma waxay u baahan yihiin kabitaan wax lagu kabo taa qodobka koowaad waxaan u direynaa qolada Qurba Jooga haddii aan nahay bulshada Hareed waxa kale aan u baahanahay oo iyana muhiim ah macallin xagga quraanka ah ama diinta iskuulkan carabiga iyo diinta ka dhiga xaggan kale malcaamada ah iyo masaajidka oo inta khudbada jimcaha laga akhriyo oo wadaad heerka gaadho aan ahayn sida awgeed taasuna waa baahida ugu weyn waa diinta islaamka ubadkuna in lagu rabeeyo ay u baahan tahay marka sida awgeed taa waxaan u baahanahay in laga caawiyo haddii aad tihiin Qurba Jooga wixii aan nagala qaban kartaan nagala qabataan inta waxaan noo raaca iskuulkan muddo hadda dhisnaa dhowr iyo 10 sano inta wax joogin waashmaan ninka waashmaanka marna wax mushaahara ma qaadan dawladuna ma siiso dadweynaha kama xiro ka laftiisa wixii wax kasta ha noqotay aan nagala qaban kartaan nagala qabataan iskuulkuna dhowr waxyaabo oo yar yar waxa tahay xagga barkadii waa ka qarxday oo dilaacday daaqada ka burburay samuuradii oo naga xumaaday kuwa gidaar ku samaysana albaabadii oo jajab naga gaaray waxyaabaha wax nagala qaban karo in nagala qabto hadan waxa weeyaan halkan waa maada carabiya waxa weeyaan hadda halka waxa ku qoran si fiican ardaydu ma arki karaan hatta ardayga ugu dambeeya hadeer waxa laga yaabaa ilaa uu xaggan hore fariisto xagga horena arday kala fariisto ma fariisan karo marka muuqaal ahaan ayay markaa sabrada u dayay mid labaad sabradana waxay ku samaysan tahay gidaarka oo gidaarka maxay tahay marka hore lagu rajiyo lagu sameeyay sabrad kale oo gaar ah ayaa markaa ka fiicnaa lahayd ama sabradaha qalinka oo kale inay si fiican u arki kari lahaayeen ardaydu taasna markaa muuqaal ahaan iyo inay ardaydu arkaan waxa sabrada ku qoran ayay sabrada
dhibaato nagu haysa ka go'an tahay inay isbedel sameeyaan hase yeeshee duruufo ay ku xiran yihiin dhaqaale oo iyaga ka awood sareeya waxaan rajaynayaa waan ilaahay ka baryayaa aan idinka iyo inagu inaan iskaashano ummaddu iskaashi wax ku noqotaa oo aan markaan weliba isla hadalay waxay iyagu ballan qaadeen wixii awoodayeen oo halkan ay ku ballan qaadeen waxaan rajaynayaa qurba jooga oo aan intaan xiriir ka leenahay oo aan afkooda ku hadlayo guddoomiyahoogii ahay aan iskuna xidhannahay hadday tahay yuusuf jaamacagoon hadday tahay maxamed siciid warsame hadday tahay kilo xaaji cige hadday tahay maxamed xasan dheere hadday tahay axmed yuusuf jaamac iyo xaali axmed gurey iyo odaygayaga baarax ibraahim baarax george dhammaan waxaan leenahay halkan baaqaas laynoo soo jeediyey inuu ilaahay naga dhigo kuwii ka soo baxo waxaanuna ballan qaadaynaa anigoo ku hadlayo codka guddiga horumarinta xeebta mayd inaanu macalinka halkan jooga wixii aanu u awoodaba bisha dambeba inaanu insha allahu tacaala aanu horta bal ugu yaraan fasalka aanu ballan qaado anigoo kula noqon doono guddigeyga waxaa kale oo meesha jira oo runtii ah diin la-aani waa dad la-aan diin la-aani waa shaksiyad la-aan diin la-aani waa horumar la-aan haddii aan la helin qof diin iyo maadi ka dhisan maadi kaliya waxuma tarayo marka taa iyada xagga shiiqa qur-aankana dhigi doona masaajidkana wacdiga jimcaha iyo mararka kaleba la isku xid doona mujtamacana waanu ka hawlgelaynaa insha allahu tacaala waxaan la kaashanaynaa guddiga reerka ceergaabo fadhida anagoo ah qurba jooga waxaanuna rajaynaynaa sida ugu degdega badan inaan helno qof ku munaasiba oo halkan dega oo soo jiilkan maaragta maanta soo baxaya mustaqbalkeeniya gacan siiya insha allahu tacaala arrintaa waa rajaynaynaa baaqaas waxaan iyana u dirayaa hay-adaha samafalka waxaan u dirayaa dowladda somaliland waxaan u dirayaa maaragtay wasaaradda waxbarashada ee gobolka wasaaradda waxbarashada ee gobolka waxaan leenahay maaragtay indha furan oo ha loo yeesho meeshan waa dad beeralaya waa dad degaana waa dad doonaya inay wax bartaan waa dadkii mustaqbalka la wareegi lahaa marka insha allahu tacaala iyagana waxaan leenahay waxa ay maanta siiyaan wax ku filan maaha waxaynu ognahay wasaaraduhu inay dee arrimahan oo kale hoos u eegaan insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inaan aniis arrintaa mar labaad aan iska aragno guddoomiyaha gobolka waxbarashada iyo dadka kaleba oo ay noqoto kani xiriir hadda noo bilowday ee aan halkaa ku joogsan insha allahu tacaalana mustaqbalka aynu iskaashano waxase muhiima idinka laftiina in xaggiina hadday tahay xiriirka hadday tahay ilmaha oo la ogaado waalidka iyo macalinkaa isku xidhaataan annaguna qurba jooga kulle waxaan idiin samaynaynaa xiriir joogtaa oo guddoomiyaha degmada maaragta ismaaciil maxamuud axmed ismaaciil bal axmed xayd baa loo yaqaanaaye oo halka ka guddoomiyaha in axmed xayd insha allahu tacaala inaan xiriir si gaara uga samayno